خضر حسين عبدي xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka hadlay macallin Cabdiqaadir Nuur iyo sidoo kale Abwaan Baashi Xasan Maxamed oo dhawaan maxkamadda racfaanka ee gobolka Maroodijeex ay ku xukuntay 8 sano oo xadhiga iyo waliba 625 kun oo dollarka Mareykanka kuwaasi oo loo haysto inay waxyeello gaarsiiyeen xadhkaha dhinaca internetka ee ay leedahay shirkadda Sam Cable iyo waliba inay kula kaceen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Magacdil saaka waxaan xabsiga ugu tagay aan booqday Abwaan Baashi iyo macallin Cabdiqaadir oo labadoodaba sida aan la socono xukun arxan darra oo cadaalad darra oo mandaqa iyo aqliga iyo garaadka qof kasto wax garado reer Soomaaliland iyo mujtamaca muslimiinta iyo qof kasto kalaba ka baxsan lagu xukumay Baashi waxa ahaa aabbo 10 caruur haysta isaga ayaa u shaqeyn jiray mas'uul caruurtiisa ka ahaa nin xoogsada oo wastaada oo guryaha la dhisay ka shaqeysta ayuu ahaa macallinkuna macallin buu ahaa oo isaguna iskuul buu baraka ahaa waxaan ognahay inuu naqaana macallinku inuu qaato wax $100 ka yar aqliga dhigaya qof shaqaale dawladeed oo $100 wax ka yar qaata in lagu xukumo inuu $600,000 lacag ka badan oo ganaaxa uu bixiyo ee aan cadowtinimo iyo arin gundheero ujeedada kale laga leeyahay ahayn aanu ma garanay dariiq kasta oo nimanka loo maray dariiq qaldan buu madaxweynaha ayuu ahaa markii aanu madaxweynaha noqon ninkii hadlayay ee lahaa waa khalad qofka in gurigiisa loogu tago inuu isdifaacana xaq buu leeyahay خضر حسين عبدي waxa uu sheegay in Soomaaliland ay ka dhacaan xadhka cadaalad darra waxaana uu arintaasi sheegay inay salka ku hayso xeerarka haatan ay Soomaaliland isticmaasho in la sameeyay sanadkii 1967 markii dambana ay wax ka bedel ku sameysay xukuumadii madaxweyne Siyaad Barre ee dawladda Soomaaliya sababta dadkaasi ay u xidhmayaan ee maalin walba loo xidhayo ee maxaan ku raahdaa cadaalad darradu ay u jirto koow waxa ka ah xeerarka aynu isticmaalo inoo shaqeeya waa xeerarkii la sameeyay 1967 markii dambana xukunkii kale taliska ahaa ee Siyaad Barre uu maxaan ku raahdaa ka bedel iyo kaabis ku sameeyay 1974 waa ayaan daro in maxaan ku raahdaa in gudoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali uu ku shaqeeyo sharci 76 la sameeyay isagoo nin dhalinyaro ah oo imika wax bartay marka maanta waxaan leeyahay aadan iyo maxkamadda sare waxa idin yaala imtixaan cusub imtixaano hore oo badan oo ku dhacdeen baa jira geesta kale xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxa uu sheegay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiga kulmiyaba ay cadhaysan yihiin waxaana uu tusaale u soo qaatay hadal uu sheegay in Cabdicasiis Maxamed Samaale oo ka tirsan xisbiga kulmiye isla markaasina xilal wasiirnimo ka soo qabtay xukuumadii madaxweyne Silaanyo uu sheegay in xisbiga wadani uu yahay cadowga kulmiye ilaahay baa quraankiisa inoogu sheegay la carada ay cid u qabtaan iyo xumaha cid u qabtaan yaana idinka kaxaynin cadaaladda laakiin maanta waxa muuqata inuu madaxweynuhu cadhaysan yahay shirkii kulmiyeyna la socotaan in kala mooyee Cabdicasiis Samaale ayaa khudbad dheer oo quraan badan ku jiray ka akhri waxa uu inta soo jeer ku celi cadowgeena isagoo cidda uu toos uga hadlaya ee uu refer gareynayana ay tahay xisbiga wadani macaamilaadka socda ee taageerayaasha wadani lagu bartilmaameedsanay ee dhibaatada loogu geysanayo ee qaarkood lagu xidhxidhayo waa cadaawada uu sheegay marka sheekhoodii uu cadow noo malaynayo jabhadoodina maxaad u malaynaysaa sagal Beldeq Axmed Cable TV Hargeysa